iyadoo maalmihii la soo dhaafay eedeena kala duwan loo soo jeedinayay duqa degmada Laascaanood Cusmaan Salabaan Jaamac ayaa waxa maanta mar kale ay la hadleen warbaahinta qaar ka mid ah dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Laascaanood. dadkan danyarta ayaa ku eedeeyay maayarka degmada Laascaanood Cusmaan Salabaan Jaamac inuu diiday kaararka lagu qaadanayo deeq raashin ah oo loo soo wakiishay maayarka looguna soo dhiibay dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Laascaanood. dadkan danyarta ayaa waxay sheegeen inay kala kulmeen ilaalada dawladda hoose anshaxumo iyo jirdil iyadoo la arkayay ilaalada oo jirdil u geysanaya dadka danyarta ee albaabada dawladda hoose tuban isla markaana ay fadhiyeen bacadka loona diiday. anaga ku xambaarayna maayarka magaalada raashinka soo galay dadka maxay tahay danleyda aan ilaahay mooyaan aad u qabin aan maxay tahay waxba ka siinin waxaweyaan aanu ku xambaaraynayna maayarka ma garan anagu ka hadlaynaa danta dadweynaha masaakiinta agoomada curyaamada dadkii reer miyiga ahaa annagoo isku duuban wixii maayirka loo soo dhiibay nama soo gaadhsiin wuxuu siiyey intii maraweyntahayd ee hantida lahayd masaakiinta ilaah bay leeyihiin waxaanu ka codsanaynaa adduunweynaha in aan waxba naloogu dhiibin iyaga iyo wakiil wixii aba oo aanu idinka baryaynaa mar labaad idinku celinaa ilaahay inaad ka baqdaan oo dadka aad wax u soo diraysaan inaad idinku gacantiina ugu keentaan baanu idinka codsanaynaa. ugu dambeyntii dawladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa u muuqata mid fadhiida iyadoo ku guuldareysatay xalinta dhibaatadan soo noqnoqotay xilli ay ku mashquuleen xildhibaanada golaha deegaanka iyo duqa degmada Laascaanood kala fadhiyo aan miradhal lahayn. Ismaaciil Haradigeed, Somali News TV, Laascaanood.